السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo oo aan isku sheego qiso ama macluumaad yar oo ku saabsan hab nololeedkii suugaanyahii caanka ahaa Cabbaas Maxamuud Alcaqaad. Caqaad wuxuu ku dhashay dalka Masar, magaalada Aswan 1889. Caqaad markuu yaraa aabihiis wuxuu u raaci jiray meesha majaalista oo akhriska iyo dacwada iyo diinta. Cabbaas Caqaad wuxuu ku jeclaaday meeshaas aabihiis u raaci jiray masaajidda iyo meelaha cilmiga. Wuxuu ku jeclaaday akhriska iyo kutubta taalacaynteeda iyo fiiriskeeda. Kadib waxaa la sheegaa waxyaalo la wariyo cajiibkii waxaa waaye markuu dugsi hoose uu dhigtay waxbarashadiisa dugsi hoose ahayd, kadibna wuxuu ka shaqeeyay meelaha dowladda ku shaqeeyay. kadibna saxaafaddu wuxuu siibtay waxyaaluhu yiri waxaa caan ku ahaa uu dhahay kamid ah inaad qof u shaqeyso waa adoonnimo, macnaha ama shirkad u shaqeyso ama dowlad ama shaqado dhan oo qof loo shaqeynayo waa nooc min adoonnimada kamid ah. Marka saxaafadda u soo siibsatay dhanka warbaahinta u batay, wuxuu ka shaqeeyay dalka Masar inta badan warbaahinada ugu caansan waqtigaas. Kadibna wuxuu caan ku ahaa ninkan wuxuu necbaa laba shay: shuyuucinimada aad u necbaa, laba wuxuu necbaa dictatornimada, marka ama kalitalisnimada waxay dhahaan. Marka Cabbaas Caqaad wuxuu ahaa nin akhriska dhiirigeliyo. Wuxuu lahaa maalin walba Jumce ah fadhi uu lahaa jirto caan ahayd oo ahaa fadhiga suugaanta oo taariikhda iyo aqoonta iyo isku weydaarsan jiray dadka ugu sarreeya waddanka oo suugaanyahanada iyo aqoonyahanada waddanka iyo dadka taariikhyahanada isku imaan jireen, su'aalo isku weydiin jiray, cilmiga la isku dhaafsan jiray, afkaar wax cusub iyo marka waxyaaluhu qoray waxaa kamid ah inuu qoray 80 kitaab. 30 kamid ahna inta badan ama ka badanba ku qoray diinta iyo caqiidada iyo marka waxaa kamid ahaa kitaabtu qoray kitaab loo yaqaano Alcabqariyaat. Alcabqariyaat wuxuu ka hadlayaa waa 6 silsiladiisa 6 waaye. wuxuu ka qoray Nabi Maxamed Cabqariyat Nabiyullaahi Maxamed, Abubakar, khulafaa raashidiin al-arbaca, afarta khulafo, Abubakar wa Cumar iyo Cuthmaan iyo Cali iyo Khalid bin Waliid. Cabqariyaat wuxuu qoray 30 sano taqriiban ay ku qaadatay qoraalkiisa, waxaana ku dhaliyay mar uu fadhiyay mawlidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo la dhigayo iska taqaana dadkii hore oo jadiid ahaan ama suufiyada waxay dhahaan waxay dhigi jireen xaflado oo mawlidka rasuulka lagu weyneeyaa iyo waxaas oo wax bidcaan gadaal ka imaada salafka saalix intaan la keenin. marka soo fadhiya asxaabtiisa waxay dhaheen ma rasuulka qortid. marka in Ingiriisiyana ka qoray hadda hore oo dadka ugu waaweyn dunyada uu ka qoray, marka kitaabkaas ay akhrin jireen. marka waxay dhaheen ninkaas Thomas wuxuu ka qoray rasuulka sallallahu alayhi wasallam soo gaale adigoo aqoon leh oo akhris leh oo nin akhrin badan leh waa ka qortid. marka wuxuu ka qoray Cabqariyat Nabiyullaahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. kitaabkan markuu qoray marka waa kana kitaab aad qayim ah waaye, qaab cajiibna uu qoray. waxyaalaha ku kalifanaya waxay kamid tahay dadkii waagaas imaadaya waxay ka hadli jireen rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu naaga jeclaa, haween jeclaa ridwaanullaahi calayhim sallallahu alayhi wasallam. laba inuu dhiigga daadin jiray. labada qodob ku doodaan waayo dadka sharciga westiga gaar oo dhanba waxay Nabi Maxamed ku duraan waa labadaas meel meelahaas ka soo galaan. haweeney waa shahwo jecel oo badnaa iyo waxay dhahaan iyo
iyo dhiigu daadin jir macnaha. marka waxyaalaha ku kalifa kamid ahayd iyo asxaabtooda ku dhiirigeliya in nabi maxamed sal ly slam wax ka qoro. marka 30 sano ku qaadatay kitaab cajiib oo ku qoray marka nabi allah maxamed sal ly salam. صلوا على النبي محمد إن الله وملائكته يصلون عليه وصلوا عليه وسلم تسليما. maalintu dhameynaya kitaabkan waxaa isku soo aaday mawliidkii ama waxay